gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose iyo wasiiru dowlaha madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa kulan waxa ay la qaateen maamulka degmada iyo ururada dhalinyarada iyo bahda sportska iyo haweenka. Dhammaan ururadan ayaa ugu warbixiyay mas'uuliyiintan baahiyaha ka jira degmada iyagoo sheegay in loo baahan yahay in wax laga qabto. Gudoomiyaha degmada ayaa tilmaamay in ka degma ahaan ay qaadan doonaan kaalintooda. Kulubin sportiga fursadii tiidin wal sheegba meel usan kidheelan buloni wal si balan qaade madiba nadas kidhagdaw usoo oo marti oo rogi ibrogi wadalini ko dhar wadalini ko isbitaalkina aan bilaabi ogayteen gudoomiya iyo warka ulaska aan wadi waayay gudoomiya la wadaagi gudoomiya daasi degdeg ugu jawaabay. wasiiru dowlaha madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa bogaadiyay doorka ay ururada ka qaataan ka shaqeynta amniga iyo waliba horumarka degmada. marka waa mahadsantihiin aad iyo aad runtii ugu faraxsanahay inaan markii ugu horeysay aan walaweyn aan imaado. marka targetka ama ujeedada ay horumarinta dhalinyarada madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxay u tahay first priority ama mudnaanta koowaad ay u tahay. waxaad ku ogaan kartiin taas xildhibaanadii laga soo doortay Koonfur Galbeed wasiiradiisii ayaad macnaha ku ogaan aad ka garan doontaa aad ka garanaysaan. marka aad iyo aad u mahadsantiin. gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Mudane Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa u ballan qaaday in ay dhawaan dhisayaan MCH iyo waliba garoon ciyaaraha ah iyadoo dhawaan xarag laga jari doono isbitaalka weyn ee degmada. ujeedada laga lahaa kulankan wuxuu ahaa inaan ogaano baahidiina iyo dareenkiina dawladnimo heerku gaarsiisan yahay iyo wada shaqeynta idinka iyo maamulka idinka dhaxayso intay la egta. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in halkan ay joogaan dhalinyaro rag iyo dumarba ah oo maamulkoodii ku kalsoon ciidankoodii ku kalsoon hiigsanaya dawladnimo raba in kaliya laga caawiyo adeegyadii bulshada in fadhigooda looga keeno wixii kalena ay halgan ugu jiraan inay ayaga gacantooda ku sameystaan. hadday ahaan lahayd nadaafadii hadday ahaan lahayd amnigii inay kala shaqeeyaan ciidamada amniga iyo maamulka hadday ahaan lahayd inay xaliyaan khilaafaadka gudahooda. waa horumar aan degmooyin badan oo gobolkan ku yaala aan haysan. waxaan idinkula talinayaa marka ugu horeysa inaad horumarkaas aad sii daa'intaan aad ku dadaashaan biidin illaahi tacaala. sida gudoomiyaha uu sheegay waxaan ka annaga oo dhan arki doonaa markhaatina ka noqon doonaa walweyn cusub oo tii hore la yaqaanay aan ahayn haddii aan lahayd. intaad laakiin dawlad haysatid siday doontaba ha u jilicsanaato siday doonta adeegyadii dawladda ee dadka iyaysan gaarsiin laakiin rajaa jirto rajo aad ku noolaan kartid ilmahaaga berri aad wax ku bari kartid adiga mustaqbalkaa ku dhisi kartid ayaad haysataa. waxaan idinka codsanayaa marka dhalinyarada iyo gabdhaha haweenka odayaasha degmadan ka soo jeedo dawladnimada ayaa noloshiina ay ku dhismi kartaa. dawladnimada inaad ilaashataan.